بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا channel كي ياسمين ستايل تيوب ساكن تام بحي أرد سيسيد داي أن سوقت لبدا دكسي يدبولا دودا ما شاء الله دكسي يدان عادي ما ويعلوسيهين كواليتي أهان ويلا في عنادين مركواس كسو إبسدي كويق هراء ديبانو إنay mirir hayaan baan u maleeyaa marka alxamdulilah jikada xaalkeeda waa saas inaan ka cararo wax yar baa iga dhiman kusoo dhawaada channelkeyga Yasmin Style Tube hadaa igu cusub tahay please subscribe and like ii saar hadaa ila joogi jirtay comment hoos igu reeb aad iyo aad u mahadsan tahay halkaasaan biyo iyo waxaan kusoo shubtay shaambada alaabta lagu dhaqo waxaan rabaa inaan kusii buubuufiyo kuukarka si uu saliidda iyo waxaas oga sii bibixiyo aad buu wasaq u yahay hawaaye I don't know wax la ku karsadaa waa ka baxaa marmarna waan dhaqaa marmarna waa ka iska dhaafaa marka waa saas dee xaalku la socda biyahaas iyo shaambadaasaan ku buubuufinayaa inta alaabta kasoo dhaqaayo bes ayuu ii diyaarsanaanayaa waan soo baxay alaabtii baan inaan dhaqo bilaabay alaabtu way badan tahay maanta nadaafad waaye ila shaqeeyaya alaabtii la dhaqa ina soo dhawaada thank you kuwii mansadayo sida uu hogaandaydan kuwii ilaaliyayo sidii nebi ayuuban cadii ku samraayo sidii abuu hurayran kuwa adigiyo naftaydan ifka ugu jeclahaye sida uduga dogan kuwii mansadayo sida uu hogaandaydan kuwii ilaaliyayo sidii nebi ayuuban cadii ku samraayo sidii abuu hurayran kuwa aaminayo adigiyo naftaydan ifka ugu jeclahaye aynu dookhiyo damqashada kasimanahay qalbi ku darsaadayba kalinimo dareeme anu doonistaadii jirku ay dubaxshayo nafta dabar ku xidhataa ka jeclaatay dumarkee adigaan dugsiimiyo ka helay daryeelo adigaan dugsiimiyo ka helay daryeelo qalbi daacado furan iyo deeqa Yasmin alaabtii inta badan waan soo dhaqaysaa ujeedaan digsiyadii iyo kuwii waaweynaabaa ii hareen digsigaan sheegahay waa kan waa labadan digsi cunto haddaa meel la dhigto waxbaa kasoo dhexbaxbaxaa marka aad baa u dhibsaday kaas waayo inaan ku bedelo kuwa cusub oon hadda soo gaday marka sidaasaa alaabtii u dhaqaayaa ilaa iyo intada ay la soo gaarteen waxaan iga codsanaya inaad liketa iga hubisaan commentna hoosta igu reebtaan insha allah waxyaabaha jeceshihiin inaad daawatiin aan ii soo gelo digsiga saasuu gudaha uga madoobaada cunto meel mala dhigtaybo waxbaa kasoo babaxa kuskuus camal ee gudaha mirir miyaa ma ogi marka sidaa darteed waan iska ilaaliyaa waan nacaa mar walbo bahalkaasaan guriga bahalkan madow silig baa ku jiraa aad buu iigu rugaa marka bahalkaa siligaa ku jiraa si fiican buu u rugaa digsiyada maasha allah labadan digsi marka waa dhibsaday inaan naag shaqaale inaan iskaga sadaqaystaa raba iska siiyo naaho qaado dhaho marka labadan laba cusub baan kusoo bedeshay marka insha allah waan dhaqayaa labada kaloo cusub waa kuwan
ayagana boorka ka dhaqayaa nambarkaas ku qoran nambar ma ahee lacagta qiimaha waaye lagu soo gaday. Digsiyaashan waa digsiyadii hore aadayna u fiican yihiin. Non-stick waxaa la dhahayo hadda socdaan cudurada laga qaadaa iska ilaaliya. Lacagtiina iskaga khasaarinina. Kuwan waqti badan way kuu cimrinayaan. Maasha Allah aaday u fiican yihiin. Ayagana waxaa waaye hoos way ka culus yihiin kaan iska arag. Qiimo jaban oo macquul ahna waa kusoo gatay way ku qoran yihiin hataa qiimihiisa. Maasha Allah sidaas baan usoo nadiifsaday alaabtii dhan jikadii meel kasta waa leefay. Saaka dee saan biyo leh ugu jira ilaahay baa og xaalkeyga. Maqligii oo isagana wasakh ahaa baan soo qaatay isagana waan dhaqay mufta ka saaray maasha Allah. Please waxaan iga codsanaa inaad share ii dhahdiin si oo saaxiibo fiican oo idinka camal nii helo. Anigana i dhiirigeliya oo like dhacdhac ku siiya. Maasha Allah alaabtii waan soo dhameeyay wixii dhan waan biyo raaciyay. Marka meeshii alaabta aan ku dhaqaan tirtirayaa kadibna kuukarkii baan dhaqaynaa oo kusoo buufiyay shaambadii iyo wixii. Kuukarkan uu duqoobay sanado badan buu isoo hayay maasha Allah. Marka intuu wax ii karinayo waa sii isticmaalaa kow kama dhahayo insha Allah. As long as uu shaqaynayo uu wax karinayo waa hayni karaa. Marka waa iska soo dhaqdhaqanayaa wixiigii maasha Allah. Daawooyinka lagu dhaqo ma hayo laakiin ani wixii iga hor imaadaan ku dhaqaa. Waxaas ma qoro laakiin inkastoo inuu mimirire uu egyahay wax ku dadaateen ay ku dhegeen wax fujiyaa jira oo yacni wixii markii lagu buufiyo uu ka fuqfuqaa waxa aad gacanta uga fujin weyse camal. Marka maasha Allah sidaas iskaga soo dhaqday haduuba ii karinayo maxaa ku falaa dhaqowgiisa iyo hooshiisaan isdhahay. Marka alaabtii waxaa la dhahaa kuukarkii sidii aan usoo dhaqay usoo nadiifinayaa. Maasha Allah tabaarakallah birihii aan ka bixiyay ayagana waan soo dhaqayaa. Waa mahadsantihiin waqtigiina quruxda badan sidaa ii siiseen maasha Allah. Cilaankaas gacanteeda saaranna waa sharooto maasha Allah qurux lagama sheekeyn karo. Si qurux badan buu igu soo baxay. Marka alxamdulillah sidaasaa usoo alaabti baalihii usoo rugrugayaa. Bahashaas aan ku rugaayo silig waay marka wixii adag buu ayada ka saari maba ku rafaadaybo. Waxyaalaha dhusuq ka baxaayo waa ujeedaan waxaasoo dhan waa saliid iyo wixii cunto kariska. Marka maasha Allah mararka qaar waxaa waaye in boorka la iska jafo si fiican wax loo nadiifiyo waa muhiim. Haddii kale baranbar baa shaqo kaa dhigan. Baranbar baa kula soo degi guriga haddaa iska nadiifin weyso. Kuwa shaqaalayaasha qabaana isha inay ku hayaan waaye shaqaalooyinka waxaa waaye luqluqyaday wax kuu gelinayaan. Marka maasha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin. Iga musinis ma wada siin soo sadriga gogoliga sale uma dhigin soo dhigayba dhamaanka ma soo xulan soo filkiisa haliyo sareeyo samahayga badadiya sagalama tegin oo sareeda adduun samiyo meelin sohankayga musinis ma wada siin soo sadriga gogoliga sale uma dhigin soo dhigayba dhamaanka ma soo xulan. Marka hawshii waan soo bogay maasha Allah digsigii cusbaa baan soo qaatay. Waxaan karinayaa qado. Waxyaraan soo yara nastay cabaar. Dhulka iska soo titiray meelaha guriga qaybta kale iska soo hagaajiyay maasha Allah. Waan soo nastay kadib baan soo galay jikadii haddana qado waayay ilmihii qaday u baahan yihiin soo maaha. Saaka quraaca ugu dambeysay adi meelaha 8 saac camal waay waqtigan. Qadadii baan soo qabsaday baasta dhaadheer ma jeclo caruurteyda marka hadday taalo waa la iska karinaa maxaa la sameynaa.
maba soo gataba hataa hadda adeeganayo 1 kiilo ka badan ma soo gado. Anaa markaa wixii iska kariyaa, laakiin ayaga ma jeclo, qasab aan ku siiyaa. Sidaa darteed maanta waa maalinkii wax yar aan karinaya, hata saa u jeedaan aad u yar, 1 gacan waaye. Basashii markay ii soo gaduudatay waxaa kusoo daray yaanyo, waxaa kusoo darayaa cusbo yar, kadibna daboolkan saaraya intay iga shiilmayso si fiican. Way soo shiilmatay, waan soo jajabiyey, waan soo walwalaaqay cabaarko, maasha Allah. Baasta iyo suuga kan dalac bilaash baa la dhahaa, baradhaan ku dari rabaaye. Ma garanayo, markay yaanyadii si fiican iigu soo shiilmatay waxaa kusoo daray baradho. Baradhadii wax yar markaan shiilshiilo waxaa kusoo daraya kabsar iyo toon oo ii diyaarsan oo firiijkii iigu jirtay ayaan kusoo darayaa. Waan walaaqayaa, waan shiilayaa cabaarko. Intaan biyaha ku darin inaan shiilo ayaan jeclahay, markaasuu dhadhan kaaliska arag. Toon iyo kabsartii wataas waa kusoo daray, maasha Allah. Waa yara walwalaaqayaa, kadib 2 xabo oo maraq digaaga kusoo darayaa. Maraq digaagan waa yaryaris, aad buu u yaryar yahay, cubes waaye. Waxaa kusoo daray intii marka waa isku yara shiilaya, kadibna biyaha beerka u gelinaa. Biyaha ku shubayaa uu baradhadaas ay kusoo karto, maasha Allah. Markaan biyaha kusoo daro daboolkan saarayaa intuu kasoo karaayo insha Allah. Baastadiina halkaasay diyaar ku tahay, waan soo miiray, saliid yaraan kusoo shubay, kaaliska arag. Suugada maadaama oo hilib ku darin waxaan damcay inaan malaaygan ku sameeyo. Marka 3 mirood oo toon baan soo xoqayaa, saa u jeedaan. Waxaa kusoo 3 xabo toon, 2 xabo liin dhanaan, 2 xabo soya sauce iyo basbaas aan kusoo daray. Intaas bes aan rabaa inaan ku sameeyo. Xawaaji wuu iga dhamaaday, xawaaji iima yaalo, marka saa darteed ayaan toonta ugu badinayaa si oo shiirka malaayga wax yar iiga yaraado. Marka xawaajigii wixii aan ku dardaraya carfis wax kale iima yaalo. So that is why waxaa la dhahay bun haddii la waayo bedelkiisa ma la waayo, bedelkiisaa la helaa. Marka ani xawaaji dhan iima yaalo, toonta u badiyey. Marka 1 xabo oo Royco cube baa kusoo daray, basbaas waaye kan aan ku daraayo, iyo soya sauce. Intaas bes, laakiin see kusoo baxda dee dhadhan kaaliska arag, macaan dhanaan buu ahaa malaayga. Marka maasha Allah, malaaygii uu ii diyaarsan yahay, barafku wuu ka dhacay, laakiin waxaa waaye inaan xawaaji mariyo dubo ay ii dhiman. Marka maasha Allah, ilaa iyo inta hadda ila soo gaartay dulqaadkaada aad iyo aad kaaga mahadcelinaya. Dulqaadkaada, samirkiina jannada ku geli doontiin insha Allah. Like-ta ii saara, comment hoos iigu reeba, maasha Allah. Share-na ii dhaha, fiidiyoyada saan u dhaadheer haddaad jeceshihiin hadday hoosta iigu soo qora, Yasmiinay soo badi ii dhaha. Marka insha Allah malaaygiyaa soo qaatay, saasa u marmarinayaa dhinac walbo. Toontii iyo wixii baan sarsaarayaa, liintii. Marka waxaa ku karin rabaa airfryerka. Airfryerkii aan soo diyaarsaday, aluminium baan korka ka saarayaa inuu iga wasaqoobo ma rabo dee oo hool kale uu ii geliyo. Hadhow aluminiumkaasa ka saarayaa, waa tuuraa bis, isagana nadiif uu ii ahaanaa. Marka maasha Allah, haddana kan shabag waaye hoos, ma rabo inuu dhacaankii ka daato, saa darteed yaan kan u gelinaya. Dhacaanka waxaa rabaa inuu ku karo, waa gadgadinaa ma ogtahay. Marka maasha Allah, malaaygii aan soo geliyey meesha, airfryerkii waan toosinayaa, waxaan gaarsiinayaa wixii aan kusoo marmariyey.
waa gelinayaa markuu soo dumo inoo ballan insha allah. waa geliyey waa iskaga tegay oo soo yara nastay cabaar kadib uu soo karay wakaasaasu kusoo baxay. bye bye.